halgankii waxaynu kulligeen wadan nahay agoonba agoon ha sugo anuu agoontiisana 7kii baan ahay 19 jir maalintaan ahaana waan dareemay ogaadeeriya inay dhibaatan haysato dadkii weliba xilligii malisa maqooqaanka kusoo hadhay ogaadeeriya ayaan ahaa agoomihii lagaga cararay ogaadeeriya dhexdeeda ayaan ahaa alxamdulilah maanta isagoo taabaq galay dad u halgamay haddaan dhex joogo oo aabbahay ciilkii uu ku tegay maanta dad hoggaankiisii hayaa uu joogo aad iyo aad ayaan ugu mahadinayaa hadday aawa nafta iga baxdana inuu dad iga dambeeyo ayaan xusuusnahay waan gamayaa maalinba ka tilmaan lahe dhagax buur ilaa iyo qabridahar wardheer wantare aad ku socday nacam inaan heerkan gaadhayno marna ma filayno anigu uni ma filaynin nacam isha ilaahay way badan tahay naxariista ilaahay way badan tahay laakiin maana filaynin inaan sidan u xoog badnaanayno maana filaynin hase ahaatee markaan bilownay dhaqdhaqaaqa iyo maalinkaan maanta ah dadka gudaha jooga wax waswaas la yidhaha kuma dhicin aad iyo aad iyo aad baa waxa ka jira wadankii ninkii tagay wuu soo arkay baa loogu dhabar adeygay oo loogu dhagan yahay idinka dibadda jooga waxaa la idinka baahan yahay dagana xooggeena iyo muruqeena ayay lacagi ku jirtaa waxaan idinka baryayaa dhalinyaro halganka u shaqaysa oo u goda in la helo oo taariikhda gasha mugaabayana waan idinku darayaa dhalinyaroy ha la helo dhalinyarada halganka u shaqaynaysa si aan u xorowno si aan u xorowno dhaqaalaheena wadabtiin waayo Ethiopia waa iska faydi lahayd Soomaali baynu nahay waynu ka adagnahay waana qaana waliba Ethiopia anu Addis Ababa ku koray Addis Ababa ayaan ku koray oo inta ku soo leekaaday xabashigan ma aqaano waxaan u baran waayay waa nacaybka aan qabay inkastoo fiicanta oo intii aan qaanay waxyaalo badan iga difaacday oo ku qoomeeyay inaan barto laakiin nacaybka u qabay ayaan baran waayay waxaan idinka barayaa halganka dhalinyaro u shaqaysa in la helo oo u gooda oo taariikhda gashay sidii SWL gashay in la helo ayaan doonayaa waxa weeyaan Ethiopia inta yar dhaqaaqay baa maanta fallaar ku ah fallaar ay Ethiopia taas ku tahay sababtay tahay ma la zanaawi ma mooday heerkan inaan gaarin haduu mooday wax weyn naga dabin lahaa laakiin maanta waxba ma inaga gaaro waa ka aragtii ciidan baan yeelanay maskax baan yeelanay rag baan yeelanay rag baa duurka ku gaboobay rag baa gabdhaha dilalay iyagoo raggoodii duurka ugu tagay oo qaaqaawan qisaasta lagu bilbilaro ninkii oo meyd gabadhii oo ninkii oo qaawan iyo gabadhii oo qaawan oo meyd aan idhaha saa u saartay ilma adeerayaal ha raaxaysanina raaxaydin markaa la yurub rag baa dhistay oo iskale oo dhiig u horay taariikhda Norway markaan maqlo iyo saan inagu wadankeenu geed u leeyahay dugaal u leeyahay oo cunto u leeyahay Norway dadka qabtay ku soo dagaalantay oo 5 milyan ugu maqan tahay la yiri Mareykan intii soo hadhay baa raaxaysanaysa maanta ma waxa damacdeen jiilka soo kacayna qodoon ahaano مسحن ده معناه Soomaaliya wuxuu timaan ku ahay xabada keenti baa loo yaqaan Djibouti waan tagnay sidoo kale inagu hadaba meel Ilaahayna siiyo waynu leenahay iska kina gaalada oo aynu israacno oo dhalinyarada kuwa maanta anigu aad ugu niyad samahay waa dhalinyarada konton nin ku duwan yahay agtay oo siyaasadda ku jira ma doono mana salaamo oo wallahi oo billahi sababta ay maanta xilligan anu soo maray wax ma aan baranay waayo iskuul wadankeena kama jirin qabridaha kama jirin dhagax buur kama jirin wardheer kama jirin iskuulkana uu sukayay dardabiyo wuxuu ahaa hero wiilasha halkaas labada boqol wiilka bartay 200 oo riyaal hooyadii intay xaalada iyo uqaada ka dunta canjeerada wadankeena baaxista lagama aqoon uqaadi canjeerada laga dumo hooyadii iyo saambusaha ay dugto yaa 200 ka bartay xataa xabashiga ayaa 200 loogu soo dhiibi jiray safraha gaariga soo baxay bil ama bisha labaad waxaan idin leeyahay maanta Yurub baad joogtaan idna kama cabsanaysaan cid aad ka baqaysaan ma jiro ilaah khaalqa idin abuurtay mooyaane waxyaabo badan ayaa sameyn karaa sayid mas'uul ninka la yiraahdo kaba tirtir oo baalash leh adeer bintayga eliyo wuu socdaa kaleeftiisa markii la fahmay uu ogaaday intuu sayid bas xaar ku qaatay xaalkiisa intuu xaaray uu xaalkiisa wada badbaadiyay saas oo tirtiray
fadilan oo islaam oo haddaad ilaahay baridaan leylka laydka aqbari wax kufaarta madmadow ee majuusiinta ee waxba garanaynin say noo gumaysanayaan annagu haddaanu gabdhihiinahay gabdhaha reer ogaadeen iyo go-aan bay qaateen go-aan inaan ninkii halgan ka soo jeedsada aan iska furo oonan awlaad iyo naag iyo xirmo aanan u noqon gabdhahana taasaan ku dalaynayna gabadh reer ogaadeen hal dhago oo dahaba tii xirtay ilaahay ha kugu gubo reer hargeysa waxay isugu sheekeeyaan gabdhaheenii cararay wariyaa gabdhihii 500 halaad laga bixin jiray baa wiil biyoori iska guursadaa ee boosaasana waxay dhahaan war heedha waa ku meel gaadhayay ya baayo waa dhergay waa ka dhergay gabdhaheenii qalanjada geela lagala bixi jiray saqa lagu yidhahdaa iyadoo nasab xumaadkaasi tahay oy soomaali nin qof soomaaliya ku xadgudba ay nasab xumo tahay nasab baa lagu abaxaa soori waa udeebay soomaali hadan waa horay tiri ninka soomaaliga gabadh walaashii ku odhanaya baayo waa kaa dhargay iyo kabiyoolaadha oo gabdhihii 6 geela laga bixin jiray baa yaan guursanaa odhanaya ya waa nin soomaaliya laakiin aqligaa ka maqan aqoontaa ka maqan waagii aan istiriri jirnay aan geela kala qaadi jirnay mu xasuusanya wax kala ma garanayo jiraneerka isbedelay adduunka isbedelay lama socdo laakiin dadku kolkuu dagaalamo waqtiga aynagu yar hadalka hadda ma soo koobi karo waan cadhaysnahay waan idin cadhaysnahay oo saasaan hadalkaan u sii daynay waxa way dadku markuu dagaalamo caqligu dhexlaa maskaxdu dhexlaa wax kasta u dhexlaa waa raggii maanta ina curyaamin jiray ee gamcaha ina haystay waan ka baxnay maanta Ethiopia Soomaaliyana lagu riixi maayo ogaadeenaya Kenyana lagu riixi maayo Djiboutina lagu riixi wadankeena inaga madax banaan siyaasadana inaga madax banaan Sayyid Abdullah Hassan jamcaha raggii hay walaalihii bay ahaayeen laakiin maanta inaga inkastay Soomaali gamcaha ina hayso waa iska riixi karaa waa wax yar oo maaragtay sayr ah waxay wax nagu yeeri karaan ma aha kuna jeedsan mayna iyaga waa Soomaali ma garanayaan maanta maskaxda ka dawaaran waayo dalkoodii dhannaabaa dhumay oo fakaday oo baaba'ay oo carruurtoodii shan maalin walba Scandinavian ku qaadanayaan ubadkaasoo gaalaha bari baa loo keenay waxaad samaysaan dhalinyaro halka u shaqaysa ha la helo